bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada youtube-ka wararka xaqiiqsan media qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhacdo naxdin leh ayaa waxa ay ka dhacday magaalada muqdisho iyadoo hooyo caanug yar ay dhashay looga xaday mid ka mid ah cisbitaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir oo shaqadii ka eriyey 13 qof oo isugu jira shaqaale iyo weliba agaasimo waaxeedyo haddaba sababta maxay tahay wararka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iyagoo faahfaahsan sidoo kale qodobada kale aad ku maqli doontaan warkayaga intuu socdo waxaa ka mid ah imaaraadka carabta oo wada hadalsiinaya madaxweynayaasha puntland iyo somalilan haddaba maxay ka wada hadlayaan madaxweynaha muuse biixi cabdi ee somalilan iyo weliba madaxweyne dani ee puntland xog ku saabsan arrintan ayaynu idiin haynaa oo aad ku maqli doontaan warkayaga sidoo kale waxaad maqli doontaa madaxweyne farmaajo oo tagay deegaanadii al-shabaab laga saaray amar culusna siiyey hay-adaha dowladda qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaa warkayaga ku maqli doontaa markaanse waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan dhacdo naxdin leh ayaa ka dhacday muqdisho iyadoo hooyo canug yar ay dhashayna looga xaday mid ka mid ah cisbitaalada muqdisho dhacdo dad badan la yaab iyo argagax ku beertay ayaa ka dhacday cisbitaalka soos ee magaalada muqdisho kadib markii gudaha cisbitaalkaasi lagu dhexaday wiil yar oo dhalanaa 2 bil oo keliya canug yar ee la xaday ayaa cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee soos lagu dhalay khamiistii lasoo dhaafay waxaana canugan yar la sheegay in la xaday xilli hooyadii dhashay oo xanuun haya ay huradaysay aabaha dhalay canugan yar oo lagu magacaabo mustafa ayaa sheegay in wiilkiisa curudka laga xaday gudaha cisbitaalka soos waxaana uu sheegay aabaha xilli uu isku diyaarinaya in casho u geeya xaaskiisa lasoo sheegay in cunugii laga xaday mustafa ayaa sheegay in si degdega loo soo wargeliyey cisbitaalka islamarkaana uu soo gaaray wuxuuna xusay in meel kasta ka raadiyay canugiisi yar balse ku guuldaraysay inuu helo waxaana uu caddeeyey in booliiska ay ku wargeliyeen falkan lagu xaday canugooda curudka ahaa dhacdada canug yar lagu xaday ayaa noqotay mid dad badan ee dareen cabsi ah ku abuurtay mana jirta ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka cisbitaalka soos kana soo saareen canugan yar ee la xaday dhanka kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shaqadii ka eriyey 13 qof oo isugu jira shaqaale iyo weliba agaasimo waaxeedyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer yariisow ayaa la sheegay inuu shaqadii ka eriyey 13 qof oo isugu jira agaasimo waaxeedyo shaqaale ka tirsan maamulka gobolka banaadir inkastoo gudoomiye yariisow uusan soo gaarin wareegto uusan soo saarin wareegto uu xil kaga ereeyo shaqaalahan ayaa haddana warar aan helin waxa ay sheegayaan in lagu wargeliyay iyagoo guryahooda jooga xilka laga qaaday islamarkaana aanay mar dambe usoo shaqo tegi karin xafiisyada ay ku leeyihiin maamulka gobolka banaadir inkastoo uusan duqa muqdisho caddeyn sababta uu dadkani shaqada kaga eriyay ayaa haddana qaar ka mid ah shaqaalihii la oo aan la hadalnay waxay inoo sheegeen in shaqo ka fariisidkooda sabab u tahay taageero ay u muujiyeen mas-uuliyiin horey xilka gobolka banaadir u soo maray iyo weliba in looga shakiyey inay u janjaraan dhanka mucaaradka xukuumadda nabad iyo nolol ee uu hogaamiyo xasan cali khayre ayaa lasoo baxday dhaqanka cusub siyaasadda oo nooc u eg dhalinyaro xifaaltamaysa oo hadba mar argoosanaysa ma ahan markii ugu horeysay oo gudoomiyaha gobolka banaadir injineer yariiso uu shaqada ka fariisiyo shaqaalihii mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir kuwaasoo taageeray ama ka qaybgalay xaflad mucaaradka bishii oktoobar 4 sanadkii 2018 ayay ahayd markii wareegto ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho shaqada looga eriyay la taliyihiisa gaarka ahaa ee dhanka saxaafadda shadoor xaaji shadoor qoraal ka shaqo joojinta shadoor xaaji shadoor ayaa kusoo beegantay iyadoo maalintaasi muqdisho lagu qabtay xaflad looga dhawaaqayay xisbiga midooda nabad iyo horumarka UPD kaasi oo hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud shadoorna uu ka qayb galay xafladaasi imaaraadka carabta ayaa wada hadal siinaya madaxweynayaasha puntland iyo somalilan iyagoo ka wada hadlaya hadba khilaafka u dhexeeya madaxweynayaasha puntland iyo somalilan ayaa maalmo isxigay gaaray magaalada dubai ee sutaga imaaraadka carabta madaxda imaaraadka carabta ayaa martiqaaday labada hogaamiye waxaana jiray kulamo gaargaar oo ay la qaateen madaxweynayaasha somalilan iyo puntland madaxweyne dani ayaa lagu waday in maalinta arbacada uu kasoo ambabaxo imaaraadka si uu usoo gaaro magaalada nairobi oo ugu qaybgalayo shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo wakiilo ka socda beesha caalamka
dani ayaa dib ugu dhacay safarkaasi waxaana maalintii khamiista Dubai tagay madaxweynaha maamulka Somaliland oo socdaalkiisa aan hore loo shaacin inkastoo aan jirin warar ku saabsan wada xaajoodka Imaaraadka Carabta wada oo ka soo baxay maamulada Somaliland iyo Puntland iyo isla Imaaraadka Carabta haddana waxaa Dubai ka soo safray madaxweyne Dani oo soo gaaray magaalada Nairobi xalay ayuu gaaray magaalada Nairobi oo la qorsheynayo toddobaadkan inuu ka dhaco shir u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada iyo wakiilo ka socda beesha caalamka waxaana uu Dani dib ugu soo laaban doonaa shirka Nairobi kadib Imaaraadka ayaa fursad u haysato isku keenida madaxda maamulada Somaliland iyo Puntland sal looga dhigay xiriirka ka dhaxeeya iyo shirkadda DP World oo gacanta ku haysa dekada Berbera iyo Boosaaso sidoo kale dhowr jeer hore waxay isku dayday inay miiska wada hadalka isku keento madaxweynihii hore Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland balse waxaa saameeyay colaadii tukaraq ee dhexmartay labada dhinac ugu dambeyntiina madaxweyne Farmaajo ayaa tagay deegaanadii Al-Shabaab laga saaray amarna siiyay hay'adaha dawladda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo kormeer ku tagay deegaanadii dhawaan laga xoreeyay Al-Shabaab ayaa faray hay'adaha dawladda federaalka inay shacabka deegaanadaasi si degdeg ah ay u gaarsiiyaan adeegyada asaasiga si loo caawiyo muwaadiniinta ku nool madaxweynaha ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay si labalaabayso howlgallada ka dhanka Al-Shabaab si looga xoreeyo dhammaan deegaanada ay ku sugan yihiin dalka madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyay geesiyaasha ciidamada qalabka sida guulaha waaweyn ay ka soo hooyeen Al-Shabaab sidoo kale madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay xoojiyaan taageerada ay la garab taagan yihiin ciidamada qalabka sida taasi oo waajib muwaadinimo oo saaran muwaadin kasta shabaab waa fuliyo waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan caruurtana laayaan laakiin wiilal idinka oo kale marnaba hortooda ma imaanayaan waayo waxay og yihiin inaad geesinimo iyo dhiiranaan la hortaagantihiin waxaan ugu tagaynaa meel kasto ay joogaan ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa kula dardaarmay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay samarnaba isdhigan oo ay isha ku hayaan Al-Shabaab waxaana ku ammaanay feejignaanta ka muuqata iyo diyaar garowga ay ugu jiraan sidii ay meelo kale uga saari lahaayeen guud ahaan warkii aad kala socoteen YouTube-ka xaqiiqsan media daawadayaal waa naga intaa fadlan subscribe saar channelkan haddii aad ku cusub tahay like iyo share tan ha ka iloobin sidoo kalena qaybta hoose faaladaada ama commentigaada noogu reeb waadna mahadsan tahay